الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الإسلام waxaan ku jirnaa 10kii bisha Dhulhijja ama Arafa ugu horeysay maantana waa laba shalay bay ka wahayd ciiduna waxay ku aadan tahay sabtida bariya midda ka dambaysa maalinka soonka Arafana 9kana jumcada dambu ku aadaya 10kan maalmood waa munaasabad iyo fursad mudan inaynu dadaalno oo ka faa'iideysano in badan baa sanadkii hore joogtay laakiin ajashoodii dhamaatay in badan oo joogtana hadda way joogan laakiin sanadka dambe gaari dooni maayaan yaa kamida Allahu a'lam aniga idinkuba inaan ciidiba inaga noolaan baa laga yaabaa oo haddaynan fursadan ka faa'iideysan mid la mid ah ina soo marin adduunyada intaas aan soo wadnay orad iyo dadaal baan wadnay dhididka inaga dhamaaday intaynu u yarkaadino oo haddaynan wada joojinaynay aan yaraha yarayno bal aynu cibaadada iyo khayrka ku dadaalno nabiga sallallahu alayhi wa sallam labadaba waa ina yiri war maalmaha waa khayr badan yihiin waa ina yiri amalkooduna waa khayr badan yahay war dadaalo oo cibaadada iyo khayrka ku dadaalana waa ina yiri labadaas nabiga alayhi salatu wa salaam nasiixa iyo daacadnimo inoo yiri iyo aakhiradeena sidaynu u liibaan ilahay waxa nabiga ka sugan xasan uu yiri adaabyaamaha adduunka oo dhan 12 ka bilood maalmaha soo mara 10kan maalmood baa ugu fadli badan sida xadiiska Jaabir marna wuxuu yiri amal saalix oo la sameeyo maalmahan 10ka waqti uu ka fadli badan yahay malaha faradka kale uu ka fadli badan yahay sunnadeeduna sunnada kale ay ka fadli badan tahay soonkiisa kale uu ka fadli badan yahay sadaqada kale ka fadli badan quraanka la akhriyo kale ka fadli badan dhikriga tasbiixdu midka kale ka fadli badan toobada iyo istighfaartu kale ka fadli badan ilaahay anbiyadu kala fadilay oo aadamaha kala fadilay oo maalmaha iyo bilaha iyo sanadadu kala fadilay oo wuxuu kala fadilay amalka maalmahan 10ka maalmo la fadli ama jiraan habeenaha hadii la yiraahdo 10ka ramadaan u dambeeya u fadli badan maalin hadii la yiraahdana 10kan Arafa ugu horeeya ugu fadli badan nabiga nusaa darteed wuxuu yiri ku dadaala cibaadada iyo taacadka si guud baa laga rabaa qof waliba cibaadadka ilaahi abwaab fara badan weey aadamuhuna midba baa loo furaayo loo fududeeya qof soonka loo furaa soonka u fududba qof salaada loo furaa qof quraan akhriska loo furaa qof dhikriga iyo tasbiixda iyo wardiga kala loo furaa qof sadaqada iyo maalka loo furaa qofba meel baa ilaahi u fududeeya laga yaabo kuwa ka fududaa inay ku adkaadaan oo xogay ayna naftiisu u jajabnayn arintaasi waxay leedahay maadaama ilaahay abuurkiisa aadamaha uu kala duway abwaabta cibaadadka waxa loo badiyay mid haday kugu yar cuslaato mid inay ku fududaato dadkana waxa saa loogu kala duway cibaadadka fara badan mid waliba qayb ku mashquulsan oo noolaysa in laga helo on cibaadana aan laga hajiro inta laga haajiro wax sameynayaba aan la waayin qof baa maanta dhan quraan inuu akhriyo u fudud laakiin soon uma sahlana qof baa maanta dhan tukaa u fudud laakiin soonka uma sahlana nin baa inuu soomay u fududahay laakiin sadaqa bixinteed ku adag tahay nin baa soonka iyo salaadu ay ku adag tahay laakiin sadaqadu u fududahay baab waliba dad camiran looma waayo walidaalika cilmiga laftiisu soomaydan arag culimadu nin baab inuu ku takhasuso si culumtu aynan u dayacmin aynan u wada guurin baa qolaba qalbigooda qayb loo fududeeyaa haday culumtu diin tahay haday duuyo tahayba ninba qayb baa la jeclaysiyaa soomayda arag culumtu inay wada noolaato maraaficii diin iyo dunyana ay wada jirtay ku wada salaysnayd baa ilaahay dadka saa ugu qaybiya abwaabta khayrka mid ay naftu diidan tahay aad hay isugu dhibine baabka khayrka ee naftu u fududaay kayna dib ka dareebaynin midka si fiican ugu dhaqaaji si aad maalmaha wax badan aakhira u geysato aad kaydka u geysato nabiga alayhi salaam sadarteed si guud buu inoo faray qofkii salaad kari kara qofkii sadaqaysanaya qofkii soomaya cibaadadka maalmaha dhanna si guud baa la inoo faray maalmaha guud ahaan cibaadadka qaarna dadkoo dhan inay u fududaadaan la rajaynayo aan dadan ka daalaynin
aan jirkaaga rafaad soo gaaraynin aan jeebkaaga la taabanaynin buu si gaara u dhiirigeliyey oo wuxuu yidhi fajtahiduu faakthiruu min altahliili waaltaxmiidi waaltasbiixi tasbiixa subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allahu wallaahu akbar afartaa badiya jeebkaaga lama taaban calooshaadana lama taaban iyo jidiinkaaga oon iyo gaajo laguma dirin hawsha ka soo tagoo masaajidka iyo salaad tukana laguma dhihin qur-aanka akhriskiisa kaga mashquul lama dhihin meel kastoo joogto suuqa joog dukaan joog guri joog dariiq soco gaadhi saarow ama wad subxaana allahi walxamdu lilah walaa ilaha allahu akbar hataa adoo dhexda wada haddaad telefoon kuu soo dhacood qabato hadhow halkii baad kasii bilaabi aayadee joogtay qur-aanka iga gedmaday ma leh subxaana allah dheh alxamdu lilah dheh bal fudaydkeeda fiiri walidaalika nabigeenu mar kale uu arrimahan tilmaamayey dikriga noocan wuxuu yidhi kalimataani khafiifataani cala allisaani xabiibataani ila araxmaani haqiilataani fi lmiisaani subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim waa tasbiixdii iyo taxmiiddii waay carabka waa u fududa ilahay agtiisana waa ku weynta waa jecel yahay ilaahayna waa jecel yahay miisaankana ajir weyn bay leedahay subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim socod kaama reebin shaqana kaama reebin hawlaad qabsan lahaydna kaama xanimin ajir weynna aakhara ku heshay gaar ahaan maalmahan faakiruu min altahliili waaltaxmiidi waaltakbiiri buu yihi nabigu sala allahu alayh waalih wasalam oad qaarkoodna min atasbiix bay ku dareen marka intaa ha lagu dadaalay si guud si gaar ahaaneed nabigu maalmahan si guud markuu inoo faray dadaalka maalmuu si gaara usii magacaabay waana labada maalmood ee ugu fadliga badan 10ka ee 9ka iyo 10ka maalinta 9aad ee Carafa dadka ugu tira badan sanadka ee naar waajibsaday dambigooda naar laga xoreeya waa xadiiska Aisha Muslim warinay nabigu ku yiri ma jira buu maalmaha sanadka maalinay ka badan tahay adoomo ilaahay naar ku xoreeya maalinta Carafa hadaa dadaasho oo istighfaarta iyo tawbada iyo soonka iyo cibaadada ku dadaasho ilaahay inaad barido waxa rajo weyn laga qabaa inuu kugu daro dadka naarta laga xoreeyay oo maxaa kale oo deedeeyay masaajidda u joogtay maxaa saqda dhaxa u soo kacday maxaa ramadaan u soomaysay sadaqana u bixinaysay ilaahu naar iga xoreey soomahayn umniyada yiri diilada iyo waxa uu ku taamay ugu weyn qofka muslimkii ilaahu naar iga badbaadi waay adduunyada joogayna waa ogtahay adigaba inaad bari socotana waad ogtahay faman zuhziha 'anil naari wa udkhila al-jannata faqad faz wama al-hayatu ad-dunya illa mata'u al-ghurur naar baba la iska xoreeyaa dadka ugu badan ee naar waajibsaday baana maalinka Carafa laga xoreeyaa inaad xusul duubto oo tartanto wax walba oo kale oo dhan iska dhigto maalinka jilibka u laabto si ilaahay kugu dari lahaa kuwa laga xoreeynaya naarta waa maalin si gaar ah u mudan sadarteed buu nabigu labadaba yawm Carafa in lagu dadaalo uu faray mar wuxuu faray in la soomo oo wuxuu yiri 2 sano dambiga lagu dhaafi sanad tagay yawm Carafa la isugu dambi dhaafaa sanadka soo socdana waa la isugu dhaafaa dunuubtii aad 24 bilood sameeysay baba yawm Carafa lagu dhaafi taban xuquuqda aadamuhu kuma jirto xuquuqda aadamaha iyaga inaad ugu noqoto waay laakiin diiwaanka la yughfar waay markii dawaawinta dunuubta la galo oo nabigu dhowr u qaybiyay diiwaanun la yughfar mid isaga lama dhaafo waa xuquuqda aadamaha laakiin wixii adiga rabbiga idin ka dhaxeeyay ka gashay sanad tagay in la dhaafo la garay sanadka soo socda dhaafitaanku labada waa noqon kartaa in ilaahay waa dunuubta ka ilaaliyo oodan kuba dhicinba oo fadligii Carafa ilaahay kaaga ilaaliyo iyo hadii aad kuba dhacda wax in fadligii Carafa tawbada lagu waafajiyo lagaana aqbalo dambi hadaad gasho tawba lagu waafajinay waa musiibo hadii inta tawban keeni tiraado shuruudii aad buuxin weydo lagaaba aqbali waayna musiibo labaad laakiin hadii uu ka dhaco hadii ilaahay tawbadiina ku waafajiyo lagaana aqbalo at-taa'ibu min adh-dhanbi kama la dhanba lahu baatah waa fadligii yawm Carafa soontay waa hal maalin oo sunnah oo la soomo waay waxa labaadoo nabigu ku dhiirigeliyay ducaa iyo alla bari la ducaysto maalinka Carafa ugu fadli badan buu afdalu ducaa ducaa yawm Carafa maalinka Carafa baa ugu fadli badan walidaalika nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oo ilaahay adogtiin darajada ugu sarreysay janna inuu siiyay oo horiya gadaal wax walba loo dhaafay baa maalinka Carafa iyadoo san guri hoose ku jirin oo qorax uu taagan yahay banaanka Carafa intuu geel hal neef geel dushii ku fadhiyay
بالظهر يا عصر انتو إسراعيو إلى مغرب إلهي بريئي وهيساقو انتا بدرت إلهي قارسي هدو ساد دعايا على باري ما انتا ودد علي دي وحو قرنا يقيمها يوناقا إلاله إنكو انتا دنبابين وهدنا قرية يدارا قبو هوس فردنا ومرنا كرسي كفاريسانا يا مرنا فراش كفاريسانا يا مرنا دولك فاريسانا هدال ربطو مرنا استاقي وصعصعان كرا inaad aad u ducaysato ilaahay barida maxaa ku diiday waa nafiya shaydaanka ka qaalib noqdaan maahane hadii cid dadaalaysana oo fursadan ka faa'iideysa ay tahayna nabi maxamed inaga uga baahi badan hadii dambiga laga dhaafo tahayna nabi maxamed alayhi salaam taas baahi badan ba uma qabile inaga baahideenu madax iyo minjab buuxisay marka maalinkaas afdalu ducaa ducaa yawm araf alla bari waxa uu fadli badan ka maalinka Arafa Allah la bariyo alla bariguna ilaahu waxa isii kaliya maaha ducadu waa labo ducaa mas'alatin wa ducaa ibada min ilaahi baa lagu caabudaa dhikriga iyo tasbiixda iyo ashhada iyo tawxiidku ducada qayb kamida waa ducada ugu fadli badanna waa iyadu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam minna waa ilaahi bari iyo tuugmo ilaahu waxa isii hadii ilaahu waxa isii cabaara tirada kadibna tasbiix iyo tahliil aad u wareegto ducadii baad wali ku jirtaa qaybtii ducaa cibaadatin baad ku jirtaa marka ilaahu waxa ay si ama waxa ay ilaali leedahayna ducaa masalatin baa ku jirta afdalu ducaa bay soo wada galayaan maalinkaana soonkiisa lagu dadaalay maalinka sagaalaad ee jumcadu ku aadaya waxa laga yaabaa intaanan ka bixin su'aalidin ku iman doonto ama isweydiin doontaan jumcaday ku soo aaday sabtina laguma dari karo ciidii waaye soo kii la yiri ma jumca kaligeed yaan la soomin sax nabi alayhi salaam arafana hal la sooma waa yiri isagoon kala qaadin ma jumcay ku aadamiso kuma aadin jumcada kaligeed yaan la soominna waa la yiri jumcada marka la reebayo yaan la soomin la leeyahay waa marka jumcanimada aad ula qasdayso waay walidaalika hadda khamiis ku darto ama sabti ku darto waxay ka baxaysaa jumcuun qofkani maagana qofkani jumcuu soon la gaadayay iyo jumcuu si gaar ah soon ula maagana marka khamiis ku darto ama sabti ku darto meesha way ka baxaysaa walidaalika waa la ogol yahay maalin ka horeeya maalin ka dambeeya hada ku darto tanna qofka soomaya ma yawm arafa soomaya qasadka la soomaya jumca ma arafa la soomaya haday khamiis ku aadana waad soomi lahayd haday sabti ku aadana waad soomi lahayd haday isniin noqotana waad soomi lahayd adiga tirada yawm arafaat soomaysay wax dan oo weyn kaaga ma xirna qasad iyo ujeedana lama xiriirto inay jumca tahay inayna ahayn walidaalika maradii qasadkii jumca la waayay soonkii uu banaananaya mushkilad ma laha marka waa la soomi karaa ama khamiista ka horeysa soon ama soomin soonku wuu wada fiican yahay yawm arafa ana ugu fadli badan oo jumcada ku aadan jumcay ku aadana dhib malaha inta kadib tobankii damba bilowday wixii adxiye ciid ku saabsan insha Allah jumcada damba laga hadli doonaa ciidii khudbaysa laakiin waxaan rabaa inaan tilmaamo dadka qaar baa raba arafada inay ama adxiye gowracaan nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofkii doonaya inuu gowraco wax oo xoola qalamaaninka tobnaad haday bishu kowdeedii soo bilaabato timaha iyo cidiyaha yaanu gurin ina cidiyaha gurta lama ogola ina timaha garjartana lama ogola ama madaxa noqdaan ama korhan noqdaan timu ama hoosan noqdaan timaha xeeritaankoodu ahkaamta shariicadeenu waa saddex qaybood qayb la isfaray iyo qayb la isu diiday iyo qayb aan waxba laga dhiro la isu ogolaaday kuwa la isfaray waa timaha hoose kuwa la isu diidayna waa kuwa garka inta kalena waa baabul ibaaha weey wuxuu dhayna taabata lama ogola cidiyaha lugu iyo gacantoona lama taaban karo qofkii doonaya weeye inuu udxiya arafa gowraco hadii ay qofku reerkiisa ka gowracayo ninku reer iyo caruuru leeyahay xukunku wuxuu ku tacalluqaya waa isaga udxiyadana isaga iyo xaaska iyo ilmaha way u wada jirtaa cidiyaha iyo timaha la diidayana isaga gaar ku tahay reerka intooda kale cidiya gurata ama timaha jaratay iyaga kuma socda hadalka nabi iyo xadiidka reebitaanka sallallahu alayhi wa sallam hadalku waxa uu ku socdo waa qofka mas'uuliyadda qaaday qasadkana niyooday xoolahana qali doona waaye dadka laga qalaya maaha qofka iyo reerkiisa hal neef waa ku filan laakiin oo masalada hadda kama hadlayo laakiin jumlada ah cidiyaha iyo timaha guristoodu cidda reerka odayga ka marka labaadna doonaya inuu wax qalo bay u gaar tahay
reerka iyo ilmaha kala ma khusayso walidaalika su'aasha waxay badataa marka intii la gaaro maalinka 9aad iyo 8aad la gaaro ciidana loo tima jaranayo ninkii odayga ahaa mooyeen reerka iyo ilmihii ciidda saama la isugu diyaarin kara ha mushkilad ma laha isaga uu weeyeen iska ilaaliyo hadduu xoolo qalayo ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryayaa cibaadaadka iyo khayrka inuu ina waafajiyo kuwii naarta laga xoreeyay jannada mutana inaga dhigo ayaantan dadaalkeedana ilaahay inoo fududeeyo اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واقم الصلاة